ugu yaraan 4 xilli oo gu iyo dayr ah ayaan si wanaagsan uga diin gobolada Puntland ee Soomaaliya taasi oo sababtay abaar baahsan oo saameysay dhul badan oo Soomaaliya iyo geeska Afrika ka mid ah abaartan waxay waxyeello weyn gaarsiisay nolosha iyo dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed oo ku tiirsan xoolaha nool iyo beeraha roobka ku baxa dabayaaqadii bishii 12 sanadkii 2016 ayaa Ilaahay raxmaad u hoobiyay deegaanada ku teedsan badweynta Hindiya ee gobolada Gardafooy, Bari, Karkaar iyo qaybo ka mid ah Nugaal. Roobkaas oo baahi weyn loo qabay waxa uu hayaamay reer guuraa aad u fara badan oo kula soo cararay in yar oo arigoodii uga harsanaa gaadiidka waaweyn ee xamuulka iyaga oo ka imaanayay gobollo fogfog oo Soomaaliya ka tirsan. qiyaasta adigu ilaa 40,000 degmadeeda kaliya waayeen marka loo eego Soomaaliland waa laga yimi dhinaca ka waxa laga yimi Rigaabo waxa laga yimi Buuhoodle waa laga yimi Sool waa laga yimi Mudug waa laga yimi waxa laga yimi Galmudug waa laga yimi hoostaan soo xeebaha kan mataqaana Garacad area oo dhinacaas waa laga yimi isla Puntland wixii ka sheeylaha Hobi area waa laga yimi meel aan Soomaaliya laga yimi intaas nagu meersan meejo Ethiopia oo kaliya ka waxaan ka soo rabay ariga meel la yahay sagaal ku dhis inta aan soo socdayna hadeed waa Mareykan dhan kiiloomitir ka anigu ma cabirin laakiin ilaa 400 kiiloomitir baan ku qiyaasayaa intaan soo soconay xoolaha wixii dhintay waa dhinteen wixii nool waa dhargeen oo arigu waa cunno ka cunay awr ma wata dadku gaadiidka waa weyn oo xoolaha sida ma aha gaadiid kalena lama wato biyaha xaqooda iyo xagga gaadiidka labadaasba hadda ummaddu aad bay ugu dhibaataysan tahay laakiin xoolaha ariga oo la dijiyay waa fiican yihiin waqooyi baa laga yimi afarta qaldo meel aan laga iman ma jiro kuwa xoolo keenay xayn gabano ariga shati ma wataan dameer ma wataan xataa ceelka ku dhow biyo kama soo qaadan karaan dhibaatadu way badan tahay dhibaatadu way aad bay u fara badan tahay baahi badan baa la qabaa dadku laakiin duunya hadeer loo qaylin maayo inkasta oo xaaladda abaartu aanay weli gaarin geeri aadane haddana marxaladda jirta waxay u baahan tahay gargaar degdeg ah oo aan loo kala harin maaqtadii meeshii baanu kaga nimi gaadiidkiina meeshii baanu kaga nimi waa arigihii baanu wadnaa iyo rag qaanqaan qowla gaadiid aanu wadano ma jiro gogol aanu wadano ma jiro iyo dariiqa adag xoolaha bal meel naqle aligii daan xoolihii keenay ibacaloolow bay noqoto dadna meeshii baa lagaga yimi xoolaha dadna halkan ay joogaan fikradiiba waa adkaatay halka haddaan mid xooluhu waxay u baahan yihiin iyo dadku waxyaalo tiro badan taraag dheer baanu soo garay xooluhu hadba waxba ay ka dawoobaan markii waxa ka bacay gaajadii markii gaajo ay qabeen gaajadii haysayna ka bacdo waxa soo baxay cudurro badan koow waxay u baahan yihiin daw dadku wuxuu soo maray tub dheer wuxuu watay sahaydii uu watay wuxuu ku soo rartay baabuur awala dadku reermi baa dhaqaale siyaada ma u haysan intuu dayn qaadan karay wuxuu ku soo qaatay raashin iyo gaariga shidaalkiisii wuxuu u baahan yahay taakulo baad iyo biyo labadaba baadku muxuu yahay waa cunnada dadka nolosha qofku hadduu nolol waa fiican yahay xooluhu hadda wixii dhintana waa dhinteen wixii kalena baabuur baa la soo kacay afar baa la soo guuraynayay waa yacsan yihiin waxay qabaan nasiibkood meesha loo soo qaaday joogaan weelkeeda cunto waa haystaan xooluhu waxa weeye xoolay ka mid yihiin abaartii wixii ka yimi ka raysay laakiin dadkii baa qaawan oo gogob wuxuu fadhiyaa gawaan waxyaabaha aan aragnay runtii waxa weeye waxyaabo aan
aanan filayn oo aad dhibaatooyin ba'an baan ku aragnay meeshaan waxaan aragnay dad soo guuray oo aan haysan gaadiid ay biyo ku doontaan waxaan aragnay dad soo guuray oo aan haysan cunto ay raashin ay karsadaan waxaan aragnay dad soo guuray oo aan haysan waxay dhaxanta ka huwadaan ama guryo ay dhistaan waxaan la kulannay xoolihii oo bakhtigoodii yaalla wadooyinka iyo meelihii la degayay iyo dooxooyinka oo idil waxaan la kulannay dadkii oo ka cabanaya xanuun xoolihii ku dhacay baahi caafimaad oo dadka laftiisa ayoo jirta biyihii oo biyolaan runtii ma jirto laakiin biyihii oo awooddii lagu soo qaadan lahaa aysan jirin dadkii oo aan garanayn dhulka ay yimaadeen oo arrinta ayana aad muhiimiyad arrin ule ah oo gobollo kala duwan ka yimid gobolka togdheer bay ka yimaadeen waxaan la kulannay dad sool ka yimid kuwa sanaag ka yimid kuwa mudug ka yimid kuwa nugaal ka yimid kuwa ka yimid qaybaha kale oo gobolka bari arrimaha ugu badan hadda aan la kulannay waa arrintaas waxaan la kulannay hooyooyin iyo carruur dhibaataysan oo geed hoos fadhiya gurigiina aan weli dhisan waxay ku dhistaan iyo awood ay ku dhistaanna midna aan haysan markii raggu daacad yahay oo daacad u shaqaynayo dadkuna khayraysan yahay oo jiilaashan yahay waxaa la rabaa in si fiican dadku wax u soo gaaraan waa la leedan yahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin laakiin jiilaal baa jira gaadiidkii waa laga yimi biyo la'aan baa jirta dhaxan baa jirta waxaa la rabaa in daacad loo shaqeeyo loo dadaalo dadka baahida waxa u daran biyo waa u daran in loo keeno waylan dadkii nabaadkii daaqi hadday haystaan dadkii waa nolol bay u baahan biyo u baahan waxay u baahan yihiin daawo oo dadka naftooda daawo ay u baahan oo waxay u baahan xoolahooda way xanuunsan in loo daweeyo u baahan oo waxay u baahan amnigooda in la ilaasho inkastoo hadda amniga problem ka jira oo badan aanu jirin laakiin in la ilaaliyo saddexdii maroo na soo dhaafay xoolo naqmayeen markaa waxaa hoos u dhacday awooddoodii markaa waxaa xoogaystay cudurkii oo u helay jaanis yacni soomaalida waxaa tirada cudur ku hel oo macluul kubaanatay baa ugu leedata wax ku hela markaa waxay noqotay inay wax walba u nuglaato reerahan waa isaaq waa habar yoonis waa nooca waa badannahay alliya xad baanu badannahay welina iskabaanaa warhelno midba qaarad baa gaadhigu samayn ku tuuray bal hadda eeg hadda warkaa weyn haddar in yaro qaarada mooye baabuuraadan lahayn baa ku saydhiyey waad fara badnayd weli iskabaanaa warhelin laakiin haddar yar in yar baanu weli isku waraysanay marka ilaanu degno war weyn waanaan iska helin waxaan ahay reer Hargeysa waxaanu soo guuray waxaanu soo soconay 6 iyo 20 saacadood ayaanu soo soconay alxamdulillah nabadgelyo baanu ilaahay nimcada waa naga sii nimcada ilaahay waa naga sii doogana waanu ka helnay wiilkada waanu haraad baa noogu dar haraad baa noogu dar dameerihii waa noo kiciyay gaarigii markuu noqday dameertaanu soo qaadanay waa fadhi hadda guryaha fadhiyaan awrtu way dhamaatay awrtu way naga dhamaatay ee waka awrtu way naga awrno waa idin wadan ba ya ma wadin naqaani horta intii ilaahay ugu talagalay buu jiri karaa laakiin sida hadda dadku u joogo oo u daaqayo bil iyo bar awooddiisu waa sii naqsiisa waa sii yaraanaysaa masiibaana meeshaan ka imaan karta masiibo weyn baa ka imaan karta waayo dadkan cawska hadda cagaaran iyo dooggaa raxmadda ilaahay shubay bay ku sii maararoobayaan cunno ay cunaanna ma haystaan waxna ma haystaan haddii waxaas uu dhammaado meesha wejiga la soo bixi doonto way noo muuqataa